asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhawaada kusoo dhawaada barnaamijkeena ramadan english series maanta waa maalintii 24aad titlekana waxa weeyaan community spirit iyo and the atmosphere at the mosque. Bulshada spiritka bulshada bisha ramadaanka iyo atmosphereka maxaa la dhahay masaajidka jawiga masaajidka ka jiro. soo dhawaada mar kale waxaa soo jeedinaya anigoo ah ustaad maxamuud axmed xaaji. haddii aad xiisaynayso koorsooyinkayga ingiliishka waan kugu casuumayaa. arday fara badan ayaad ka faa'iidaysatay, adigana waa ka faa'iidaysan doontaa. jumlada koobaad, there is a wonderful sense of community at the mosque during the evening prayers. masaajidka waxaa ka muuqdo dareen bulsheed oo aad iyo aad u cajiib badan xilliga cibaadada habeenkii prayerka habeenkii la qabanayo sida salaad taraawiixda oo kale iyo tahajudka oo kale. sense of community marka waxaan baranaynaa maanta wonderful ayaa baranaynaa, aad iyo aad u cajiib badan weeyaan. sense of community waxa weeyaan waa dareen bulsho. dareen bulsho micnaheedu waxa weeyaan bulsho isjecel oo soo dhaweysanayso iswanaajisanayso weeyaan. sense of community dad isjecleysanayo weeyaan. dareen noocaas ayaa masaajidka ka jiro ayuu dhahay. sense of community micnaheedu waxa weeyaan waa dareen bulsho weeyaan. a feeling of belonging and togetherness, inay dad isdareemayaan oo kale inay isku jiraan oo iswalaashanayaan ee isweheshanayaan. wonderfulna waxa weeyaan waa cajiib weeyaan. wonderful waa cajiib weeyaan. qaybta commentiga kusoo qor adigoo isticmaalayo ereyga wonderful isticmaalayo. The atmosphere at the mosque is so peaceful and spiritually uplifting. jawiga masaajidka ka jiro waa jawi nabdoon weeyaan, waana jawi iimaankaaga ama qalbigaaga ama diinta jaceylkeeda aad u qabtid ziyaadinayo weeyaan. spiritually uplifting. spiritually uplifting qaab diiniyan ayuu qalbigaaga oo ku abuuraya qashuuc iyo waxaa la dhahayay jaceyl diimeed ku abuuraya. uplifting marka waxa weeyaan niyad wanaajin weeyaan. niyad wanaajin ama diiniyan in diini ahaan ay ku wanaagsanaato weeyaan. The atmosphere at the mosque is so peaceful and spiritually uplifting. marka atmosphere hore waan usoo barnay soo maha, waa jawiga weeyaan. jawiga atmosphere waxa weeyaan waa jawiga weeyaan. the feeling or the mood of the place, siduu xaalku yahay meel weeyaan. spiritually uplifting waxa weeyaan ruuxda iyo iimaanka kor u qaadisteeda weeyaan. ruuxda ama iimaanka kor u qaadisteeda in kor loo qaado. uplifting wax kor u qaadid weeyaan. waa fahanteena filaya. qaybta saddexaad ayaan u gudbaynaa. It's heartwarming to see people from all walks of life standing together in prayers. waxa weeyaan waa wax qalbiga diirinayo. heartwarming waxa weeyaan wax jaceyl iyo marxabeen kugu abuurayo markaad aragtid ayuu ku dhahay. dadka dabaqadahooda kala duwan, dadka noocyadooda kala duwan oo iskaraba taagan oo salaad isla dukanayo. micnaheedu yar iyo weyn iyo taajir iyo faqiir, rag iyo dumar kulligood ayagoo cibaadaysanayo. walks of life marka walks of life waxa weeyaan dabaqadaha nolosha. dabaqadaha nolosha ayaa la dhahaa ama marxaladaha kala duwan. da-dana waa loo isticmaalaa. waxaa kaloo loo isticmaalaa dhaqaalaha kala duwanaanshahiisana waa loo isticmaalaa. alright, heartwarming ayaan baranay. waxaan baranay heartwarming waxa weeyaan wax ku farxad gelinayo, ku dhiirigelinayo oo qalbigaaga diirimaad ku abuuraya weeyaan. all walks of life waxa weeyaan nolosha nuuc walba ay tahay. qof walba nolosha marxalad walba ama marxalad walba nolosha kaga sugan yahay. marka qaybta commentiga kusoo qor adigoo isticmaalayo all walks of life iyo heartwarming jumlo alifo oo adiga kuu gaara. haddii aadan applicationka weli soo dejinin fadlan soo dejiso si aad quiz-ka uga shaqaysid. haddii aad xiisaynaysana koorsadeena wax ka baro academy inaad kusoo biirto waa ay kuu furan tahay. wax badan ayaad luuqadda ingiliishka ka faa'iidi doontaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.